waxaan aad ugu faraxsanahay maanta waqti ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha gobolka Puntland oo ay la socdaan madaxweynihii hore waxaan farooday iyo waqti ballaaran inaad maanta loogu timaadaan munaasabadan qadarinteeda iyo xushmadeeda iyo ixtiraamkeeda kulli aan idin hayno waxaan idin leenahay ku soo dhawaada magaaladiinii iyo dhulkiinii aad baan idinkaga mahad celinaynaa dhimaatinka aad noo timaadeen iyo safarka aad u dheer ilaa iyo meel aad u fog aad ka soo safarteen oo aan garan karayna culayska iyo miisaanka uu lahaa waxaana rajaynayaa insha allahu dhimaatinkiinaani inuu noqdo fure wax badan oo xal iyo wanaag iyo horumar intaba keenaya aadna aan ugu faraxsanahay inaan maanta aan isu nimaadno wixii wara dib baan u dhigan doonaa madaxweyne ku soo dhawow kismaayo aad baan kaaga mahad celinayaa dhimaatinka adiga waqtigaaga waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh runtii aad baan ugu faraxsannahay sida diiran oo dawlad iyo shacabba maanta noola soo dhoweeyey waan ka mahadnaqaynaa waa waajib na saarnaa maadaama ay madaxweynuhu horay dhowr jeer u noo soo booqday inaan annagana u soo booqanno la wadaagno farxadaha iyo murugadaba waxaan rajaynaynaa haddii ilaahayna muddada aan joogno in arrimaha muddadii u dambaysay jubbaland ka jiray aan wax ka galno haddii ilaahayno degaanada dowladaha xubnaha ka ana waxay rabaan midnimo dhexdooda ah dowladda soomaaliyeedna waxay rabtaa midnimo guud oo dadka u wada horseeda in bulshada soomaaliyeed loo adeego waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis maalmaha halka la joogo in wax badan la isweydaarsan doono culaysyada siyaasadeed ee dalka jirana ay ambaqaad u noqon doonto waxaana ku kalsoonahay ilaahay idankiis in wax kastoo kale aragti duwanaana ee xal waara laga gaari doono horumar iyo wanaag iyo dowladnimona wadadeeda la qaadi doono aad baan iiga mahad celinaya waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi